waxa ayaan daro ah inuu wasiirka loo idmaday inuu ka midho dhaliyo majaraha siyaasadda arrimaha dibadda ku andacoodo inuu ka qayb galay shir ay soo abaabushay hay'ad fadhigeedu yahay dalka UAE Imaaraadka Carabta oo uu daba fadhiisto wufuudii gobolada iyo calankii Soomaaliya isagoo u muuqday gobol kamid ah Soomaaliya waxa kale oo xukuumadda kulmiye looga fadhiyaa goorta uu wasiirka arrimaha dibadda la wareegay portfolio-hii wasaaradda ganacsiga duulista iyo hawada ee uu warbaahinta ugu sheegay inuu Nairobi u tagay sidii Somaliland uu maalgashi ugu soo jiidi lahaa iyo inuu kala soo xaajoodo xafiisyada qaramada midoobay arrintii duulimaadyada hawada Somaliland wasiirkii oo fadhiya shir Soomaaliyeed oo hogaaminayo sida horeba loo sheegay safiirka Soomaaliya oo fadhiya Nairobi iyo wasiirka ganacsiga ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya isla markaana uu daba yaalo calankii Soomaaliya nasiib darro reer Somaliland aad iyo aad bay arrinta uga naxeen waana ka xumaadeen waana cambaareen haddana xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxaan leenahay hore waxa la yiri waxa loogu maamulay Soomaaliya ugu maamulay in dheer garad waxa wax ka arkaa ila xid fardood Xaaji Cabdikariin waxa laga hayay warninkaasi marka uu dibadda u safrayo in hala raaciyo waxa muuqatay taladii Xaaji Cabdi la gees maray oo keligii uu ku tagay safar aanu aragno anagu aanu ku macnaynay inuu ahaa shirqool ama safar qarsoodi ah ujeedooyin iyo dana kalena ay ku liqaasanaayeen qodobada golayaasha sharci dejintu ay fureen ee ka qaybgalka shirarka Soomaaliyaana sida u dhignayd macnaheedu waxa weeyaan waxa loo ogoliyay xukuumadda Somaliland inay ka qayb gasho shirarka Soomaaliya loo qabanayo ee laga wada hadlayo Somaliland iyo Soomaaliya qadiyadda Somaliland si loo hirgelin lahaa xukuumadda Somaliland ayaa